السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا صاحب halkan iga daawanaya meel walba waa joogtaan iyo silbo muuqaalkiigu marka idin soo gaariyaba waxa si weyn loogu kacsan yahay aragtida markaasi lagu taageerayo Israa'iil markaynu ka hadlayno gudaha dalka Mareykanka maalin walbana waxa soo baxaya dhacdooyin muujinaya sida dadka reer Mareykan ay u diidan yihiin dadka Israa'iil taageersan iyo xisbiga Republicanka ah siyaasadiisa oo xilligan la arkayo inay tunka ku wataan Israa'iil iyo waliba xasuuqa dadka shacabka ah ee reer Falastiin iyo waliba bariga dhexe oo dhan marka dadkii Mareykan xoog ay arrintaas u diidan yihiin maalin walbana waxaa soo baxaya tillaabooyin muujinaya sida dadka reer Mareykan ay aragtidaasi ay u diidan yihiin waxaan aaminsanahay muddo yar kadib isbedel weyn ayaa ka soo socda gudaha dalka Mareykanka muuqaalkan waxaanu si gooniya ugu eegi doonaa gabar madow ah oo reer Mareykan ah oo meel maqaayada ka tiri Free Palestine kadibna shaqadii laga ceyriyay laakiin arrin aan la filaynin ayaa halkaa ka soo baxday gabadhina waxay heshay taageero weyn oo inabaan caadi ahayn bal arrintaa iyo dhacdo kale oo ayaduna muujinaysa sida gudaha dalka Mareykanka looga diidan yahay aragtida Israa'iil iyo kooxaha Israa'iil taageersan ayaa bal muuqaalka si gooniya ugu fiirin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo soo muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba taariikhdu waa 8 Agoosto 2026 waan markii ugu horeysay oo maanta hawada ku kulmayno muuqaalka dib soo gaar muuqaalka like saara channelka subscribe gareysta si aad la socotaan wararka iyo waliba barnaamijyada aynu halkan soo gudbino maalin walba iyo waliba goor walba aad ayaad mahadsantihiin haddii aynu bilowno gudaha dalka Mareykanka waxa si weyn looga diidan yahay aragtida lagu taageerayo Israa'iil iyo waliba kooxaha cunsuriga ah ee dhabarka ku wata Israa'iil labaduba waa isla diidan yahay Trump wuxuu bilaabay in siyaasadii Republicanka iyo midii maamulka Israa'iil aan la kala garanin oo marka ay isdhex galeen xisbiyadii hore Republicanka iyo madaxdii hore Republicanka hatta xoogaa way xishoon jireen laakiin kooxda maaga la yiraahdo iyo ragga hadda Trump la socda iyo Israa'iil lama kala garanayo tee America ay tee Israa'iila qofkee Mareykan iyo qofkee Israa'iil cid kala garan kartaa ma jirto aad ayaa la isugu dhax lifaaqay halkaana waxaa ka yimaaday kacdoon xoog leh oo gudaha Mareykanka ka kacay ana sababtii ay Falastiin gudaha Mareykanka uga heshay taageero xoog leh oo magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalka Mareykanka looga taageerayay loona diidan yahay xasuuqa ka socda magaalada Gaza si walba ha ahaato asbuucan gudaha gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka waxa ka dhacday dhacdo saameyn weyn markaas yeelatay gabar madow ah oo gabadhan aad arkaysana isla markaana u shaqeynaysay fast foodka la yiraahdo Burger King ayaa waxa u yimaaday nin Israa'iili kadibna wuxuu ku yiri I'm from Israel aydiba waxay ugu jawaabtay Free Palestine ayay ugu jawaabtay waa laba aragti oo aad isugu haya caalamka qofkeeda Israa'iil baan ka yimaaday Mareykanka waxa hadda laga yiraahdaa markiiba Free Palestine baa loogu jawaabaa waana arrin aad uga caroodaan ninkii cadaanka ahaa lahaana Israa'iil ayaan ka soo jeeday ayuu wuxuu qaadan waayay wuxuu laqi waayay wuxuu arkay arrin weyn oo madaxiisa ka weynba in lagu yiraahdo Free Palestine kadibna intuu telefonkiisii muuqaal ku duubay ayuu yiri shaqaale ka shaqaynaya Burger King ayaa aniga igu yiri Free Palestine marka si uu cadeeyo ayuu gabadha muuqaal ooga duuba kadibna wuxuu leeyahay Andriana sheeg wixii aad tiri ku celi wixii aad tiri marka midna xuus laha way baqi doontaa markii hore ay Free Palestine ay ku tiri muuqaal lama duubaynin markii dambe ayuu duubayay marka ku celi ayuu leeyahay طبعا xuus laha way baqi doontaa kuma celin doonto arrinta la midka ah meeshan waxaa taagan islaantii managerada ahayd ee Kim Burger kaasi managerada ka ahayd aydiba gabadha hor taagan marka ma aysan baqin inay soo istaagtay waliba shaatiga saa u qabsatay ay Free Palestine ku tiri markaysa ma qaranayay tiri What did you say to me? What did you say to me, Ariana? What did... Okay. Okay, Ariana. I'm here at Burger King, and an employee in Burger King just said Free Palestine to me. Ariana, what did you say to me? What did you say to me, Ariana? What did... Okay. Okay, Ariana. Because I was just ordering food for my family, this woman looks at me, and she says, where are you from? I said, I'm from Israel. And then she says, Free Palestine. And I said, what does that have to do with anything? We came here to order food. But she insisted, Free Palestine. What, say it again. I got you, Ariana. Here at Burger King. No problem. muuqaalkii ayuu marka wuxuu ku soo faafiyay baraha bulshada qaasatan barta TikTok la yiraahdo ilaa iyo X iyo Facebook si weyn
ayuu muuqaalkaasi u qaatay xataa warbaahinnaha madaxa bannaan ayaa saacadihii hadda lasoo dhaafay si weyn arrintaasi u faanqaynayay wixii intaa ka dambeeyey marka muuqaalkii cirkuu galay arrintiin waxay noqotay arrin weyn Kim Bagar gabadhii shaqada way ka cayriyeen wax bay yidhaahdeen kadibna gabadhii ayaa soo fariisatay barta TikTok-ga waxaana kacay duufaan weyn oo gabadhii lagu taageeray. Hello everybody, it's me again. I just wanted to come on here and say a couple things because I have been seeing some questions and I want you guys to know I am seeing them and I want to answer them. So first of all, thank you guys so much from the bottom of my heart. This means a lot for me and my family, especially my mother. And I've been seeing some comments about the GoFundMe saying that I keep raising it. I promise you I'm not going in there and editing it. waxay bilaabeen dadka reer Mareykan iyo dadka kale ee caalamka jooga ee xorta ah in gabadhii dhaqaale xoog leh loo aruuriyo iyo waliba in lala dagaalamo Kim Bagar oo la yiraahdo hal la cuna qabateeyo waxba yaan laga iibsanin arrimaha la midka ah iyo in gabadhii loo furay GoFundMe loo furay si markaa ayada loogu furaba ganacsi ay leedahay dhacdaas waa dhacdo 48 saacadood oo kaliya jirta marka la fiiriyo xilliga la furay GoFundMe-gan iyo xilliga dhacdan sida weyn ee hadda banaanka ay ugu soo baxday gabadhaas waxaa loo aruuriyay hadda aan muuqaalkan aan duubayo ilaa 216,000 oo dollarka Mareykanka ayaa saacado kooban markaasi loogu aruuriyay waxayna doonayaan dadka reer Mareykan intooda badan in gabadha ay samaysato brand ama business ay ka shaqeyso oo kii ay ka shaqeyn jirto kala ah oo markaasi dabcan fast food ka gada burgerka iyo waxyaalaha la midka marka dhammaan dadkii reer Mareykan si weyn ay dhacdaan uga hadlayaan ninkii Israa'iiliga ahaa baa la naqdinayaa Israa'iil baa la naqdinayaa kooxaha taageersana si weyn ayaa loo ceyrsanaya dadka dhalinyarada ee reer Mareykan muddooyinkii hadda la soo dhaafay oo dhan way diidanayeen qadiyadda Israa'iil iyo waliba xasuuqa ka jira gudaha magaalada Gaza abkan TikTok-ga la yiraahdo ayaa banaanka u soo saaray waxyaalo badan oo qarsoona xiliyadii horena platformyadan kale ama social media sida Facebook iyo kuwa la midka iyo YouTube-ka iyo ma aysan ogolayn waxyaalaha qaarkood in la soo geliyo oo waxay oran jireen sharcigan ayay ka hor imaanaysaa guidelines-keenu ma ogola waana policy inta badan shirkadaha Mareykanku ay ku qariyaan dhacdooyinka iyo waxyaalaha halista ah ama waxyaalaha naxdinta leh ee caalamka ka dhacay si aan shacabka loo tusin waa la qarinaya qofkii soo geli markiiba laga saaraya laakiin abkan TikTok-ga la yiraahdo xilligii uu ku soo aaday iyo xilligii colaadda Gaza isku soo aadeen isbedel weyn ayuu abkan u sameeyay waana sababtii xataa Mareykanka ay u iibsadeen qaybta Mareykanka si loo qariyo waxyaalaha caalamka ka socda iyo dhibaatooyinka ay dowladda Mareykanku ka geysanayso caalamka silbaba ha ahaato dhacdaas waxay noqotay bisaameyn weyn leh waxayna mar kale ina tusaysaa sida reer Mareykan ay hadda u diidan yihiin qadiyadda Israa'iil iyo waliba kooxaha cunsuriga ah ee Israa'iil tunka ku wata asbuucii hadda la soo dhaafay waxaynu ogeyn in magaalo ku taala gobolka Michigan ee dalka Mareykanka wiil Carab ah oo asalkiisu uu Masaari yahay laakiin ku dhashay gudaha dalka Mareykanka inuu markaasi noqday qofkii ugu horeeyay oo doorashada primary-ga ah ku guuleysta oo u tartamaya sanadka dalka Mareykanka inuu markaasi doorashadii primary-ga uu ku sabaxay wiilkaasuu noqon doonaa qofkii ugu horeeyay oo muslima oo Carab ah oo diidan aragtida Israa'iil iyo kooxaha cunsuriga ah oo senator Mareykanka ka noqda waqofkii ugu horeeyay ayuu noqon doonaa codka uu ku soo baxay ayaa waxay yihiin codad aad u tiro badan dadka wiilkan markaa taageeray ayaa intooda badanba waxay yihiin dadka diidan Israa'iil iyo Donald Trump iyo cunsurigan tunka ku wata Israa'iil marka qofkii hadda free Palestine yiraahda oo cunsuriga ay wax ku sameeyaan ama qofka ayaga diidan gudaha dalka Mareykanka dhaqaale iyo popularity buu helaya qofkii banaanka u soo baxay yiraahda Israa'iil ma aaminsan ama Israa'iil aaya waxaan oran karayaa millions and millions dollars baa la siinaya marka la fiiriyo qaabkay hadda wax u socdaan waana duufaan muujinaysa in la diidan yahay qadiyadaas waa qadiyad reer Mareykan ay diidan yihiin dhaqaalaha iyo canshuurta reer Mareykan laga qaadana in lagu bixiyo in dadka lagu baabi'iyaa si weyn ayay generationka dhalinyarada ah iyo kuwa middle age-ka ah hadda ay u diidan yihiin dad reer baadiye ah oo xoogaa ah cunsuri ah iyo kuwo maskaxdoodu ay xiran tahay oo dad waaweyn u badan ayaa weli Trump iyo raggiisa la socda laakiin dadkii yaryaraayo dhan dadkii immigrants ka hayo dhan dadkii minority groups ka hayo dhan waxaayo dhan way diidan yihiin markaysaan marka qof walba oo ka hor yimaada kooxaha cunsuriga iyo waliba qadiyadda Israa'iil taageera Palestine waxa xaqiiqa inuu
popularity iyo dhaqaalo iyo codadba uu ka helayo dadka shacabka ah reer Mareykan war sida loo diidan yahay kooxahaasi marka ifafaala ayaa muuqata wiilkan doorashada hadda primary-ga ku guuleystana doorashadiisa qaybta ugu dambaysa finalka ana kulay November bay dhici doontaa ay dhacdaa asna waynu arki doonaa laakiin waxay u badan tahay inuu marka uu ku guuleysan doono waana mamdaani kale marka la fiiriyo awoodda hadda uu ku socdo gabadha dhalinyarada ahna dabcan ayaduna business bay furan doontaa marka way isa soo taraysaa maalin walba waxaa soo baxaya dhacdooyin nooca iyo arrimaha markaasi ka turjumaya intaasaan muuqaalka bal kusoo koobay waxyaalihii dambe oo arrimaha ka soo kordha iyo gudaha dalka Mareykanka waxyaalaha ka socda isha ayaynu ku haynaynaa muuqaaladeena dambe ayaynu ku fiiri doonaa biidillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatu